wafdi hogaaminaya taliyaha guutada kooyitobnaad qaybta 43 ee ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed gaashaan sare Cadow Maxamed oo maalmahanba ku sugnaa deegaanka Doobley ayaa dib ugu laabanaya magaalada Kismaayo dib markay dhameysteen shaqadii ay yimaadeen asagii wafdigiisa deegaanka Doobley. wafdigan ayaa waxa uu heliyay maxkamadda ciidamada qalabka sida dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland kuwaas oo inta ay joogeen qabtay kiisas dila iyo kuwo xukumo kale isugu jiray. wafdigan ballaaran ayaa inta ay deegaanka ku sugnaayeen booqday tuulooyin hoos yimaada magaalada Doobley ayagoo sidoo kale ciidamada qalabka sida guud ahaan kala hadlay habdhaqanka laga rabo inay bulshada ula dhaqmaan. haddaba gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Ibrahim Isaaq iyo xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Maxamed Axmed Yaasiin ayaa ka warbixiyay sida ay wax ugu qabsoomeen inta ay ku sugnaayeen deegaanka. saakan aan babax ah waxay maxkamaddu ka qabatay shaqooyin kala gedisan degmada Doobley. kiisas fara badan baa yaalay kiisaskaas oo isugu jiray kiisas dil ah oo qisaas mutaystay iyo kiisas diya iyo kiisas kale oo fudud. maxkamaddu waxay u kala qaybisay kiisaskii dilka ahaa iyo kiisaskii macnaha diyada ahaa iyo kuwii kale wax ay sii daysay iyo wax la qisaasay iyo wax macnaha diya ay ku xukuntay ee u qabisay. saaki station wax ku xidhan ma leh. waxaan u mahadcelinaynaa soo dhaweynta inoo soo dhaweeyeen gudoomiyaha degmada Doobley iyo tiimkiisa ugu weyn yahay taliyaha saldhigga. soo dhaweyn wanaagsan ayayna soo dhaweeyeen. siiba taliyaha saldhigga waxaan ugu mahadcelinaynaa dadkaasi xabsiga ku jiray sida ay ula dhaqmeen. Kismaayo ku dhamaystirro ama soo laabanaan isku dayna shaqadu si nabadgelyo oo wanaagsan bay noogu qabsantay. kormeer ciidamada aan ku sameynay kuwa dagaalama jooga kuwa Doobley jooga dhammaan wixii ka hadlaysnaa oo dhan waanu saxnay. degmada iyo maamulkeeda iyo hawlaheeda oo dhan waan u mahadcelinayaa sida ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay hawshii noola fududeeyeenba. waan u mahadcelinaynaa. muddo 2 sano ah ayaan ka maqnayn oo arrintaasna waxaa keenay coronaviruskii. berigii hore markii sidaa wuxuu dhacaanba waan iman jiray taasaa waxaa keentay inaan 2 sano aan ka maqnayn degmada. haddana markuu coronaviruskii fududaaday waanu nimid. maxkamadduna waxay gudatay waajibaadkeedii shaqo. saakana waan ka doomaynaa oo shaqooyinkanagii baa noo dhammaaday. wabillahi tawfiiq. gabagabadii taliyaha guutada kooyitobnaad qaybta 43 ee ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed gaashaan sare Cadow Maxamed ayaa dhankiisa ka hadlay shaqadii ay u yimaadeen. hadalkiisina sidaan ayuu u dhacay. kadib maalintii ka dambeysay waxaan kormeernay dhammaan ciidanka deegaanka degmada Doobley. ciidankaas oo u kurgalaynay xagga difaaca noloshooda iyo sidaan iskugu xir lahayn ciidamada hadday yihiin SNA iyo hadday yihiin ciidanka Jubbaland. kadib markaan kormeerkaa sameynay waxaan u yeeray saraakiisha ciidamada xukuma yaan ayagana yaan shir la qaatay howlahaas adkeynta nabadgelyada iyo qaabkii ay isku kaashan lahaayeen oo cadawga iskaga difaaci lahaayeen yaan ka hadalnay. kadib waxaan sameynay maxkamadda waxay bilowday shaqadeeda ilaa 8 kiis yay qaaday. hal kiisna waa lagu guda jiraa oo weli dhamaystir buu u baahan yahay. intaa kadib waxaan kormeer ku sameynay dhammaan tuulooyinka degmadan Doobley ee hoos imaadaan. waxaan la shirnay gudiyada tuulooyinka odayaasha iyo waxgaradka. waxaanan la isku afgartay in la iskaashado oo difaaca hal meel looga soo jeesto
cabdinuur xayi xaashi warbaahinta codka ciidamada qalabka sida Dobley.